بسم الله الرحمن الرحيم. APC faire descendre, diminuer la quantité معناها Soomaali waxa weeyaan hoos u dhigid, raqiisin, bahdilid. Tusaale wuxuu yiri APC une vitre muraayada hoos loo dhigo waa sida gaariga muraayadiisa oo kale maxaa la sameeyaa waa la dhaadhiciyaa. APC une vitre muraayada dhaadhici muraayada gaariga. APC les prix qiimihii iyo lacagtii wax lagu iibinay ayaa hoos loo dhigay waa la raqiisiyay. La température APC la température cimilada amba maaragtay jawiga hoos baa loo dhigayaa d'une chambre gelimaseer leh amba maxaan ku radaa qaboojiye ku yaalo hoos baa loo dhaadhicinayaa. APC waa la dhaadhicinayaa bakran. Tusaale kale la misère abaisse l'homme faqrigu qofka uu bahdilaa uu xaqiraa hoos buu dhigaa. Marka APC verbe APC macnaheedu saabay ka dhigan tahay. Verbigan kale labaad abandonner waxa weeyaan ne plus vouloir renoncer laisser waa qofkii oo dib dambe u doonayn ka tagay iska dahay. Tusaale wuxuu yiri abandonner c'est bien les pouvoirs abandonner wuxuu iskaga tagay c'est bien xoolihiisii iyo lacagtiisii wixii uu lahaa uu ka tagay. Les pouvoirs awood iskaga tagay markuu madaxweyne baxsado amba qof uu ka tagay awoodda wadanka ka dhaadhaco waxa la radaa abandonner les pouvoirs iskaga tagay. Tusaale kale wuxuu yiri abandonner sa fortune à quelqu'un lacagtiisii iyo maalkiisii buu uga tagay qof kale. Il abandonne sa femme et ses enfants wuxuu ka tagay ka baxsaday ciyaalkiisii iyo caruurtiisii iyo islaantiisii ayuu ka baxsaday ka tagay. Abandonner la lutte dadaalkii iyo halgankii uu iska daayay uu ka bax. Marka abandonner intaasoo macno ay leedahay. Abasourdir macnaheedu waxa weeyaan sidere stupéfait la yaabis la fajicis. Tusaale wuxuu yiri cette nouvelle ma abasourdi warkan iyo fariintan waxaan la soo sheegay aad baan ula yaabay waan ka naxay. Je suis tout abasourdi waan yaaban yahay waan fajacsan yahay buu. Kelmadan kale waxa weeyaan abattage waxa weeyaan action d'abattre de tuer un animal waa neefka dilista la qalayo amba la gowracayo waxa la radaa abattage laynis bay ka dhigan tahay. Tusaale wuxuu yiri l'abattage d'un bœuf waxa la dilay oo la gowracay dibi. Abattoir lié où l'on tue les animaux de boucherie. Abattoir macnaheedu waxa weeyaan waa sariibada waa maskarada meesha xoolaha lagu qalo ee lagu hayo weeyaan. Tusaale wuxuu yiri envoyer des soldats à l'abattoir yani askartii helaag baa loo sababay macnahan waxay noqonaysaa hadii la turjumo literalement waxa loo diray askartii zabiirada yani waxay ka dhigan tahay waxa askarta la geeyay meel halisa oo dagaal xun ka socdo ay askartu ku dhamaanayaan ay naftooda ku waayeen ayaa loo geeyay bay ka dhigan tahay. Abcès waxa weeyaan amas de pis dans une cavité du corps waa meesha malaxaysata ee maxaan ku raacay malaxdu gashay bararta ayaa la radaa abcès. Tusaale wuxuu yiri il faut insister cet abcès waa ina la dilaaciyo oo laga tuujiyo qofkan meeshan malaxdaysatay ee abuuran waa ina laga tuujiyo. Abdiquer waa renoncer une chose abdiquer macnaheedu waxa weeyaan ka dhaadhicis iska deynis wuxuu iska daayay qofka weyn. Tusaale wuxuu yiri le président a abdiqué son autorité madaxweynuhu iskaga tagay maamulkii uu ka baxsaday. Abdiquer markaa way iscasilis weeyaan. Tusaale kale wuxuu yiri j'abdique c'est trop difficile ma sii wadi karayo farahan ka qaaday waayo way ugu adag tahay. Abdiquer markaa waa faraha ka qaadis iskaga tagis iscasilis. Kelmadan kale waxa weeyaan abeille waa shinnida weeyaan insecte qui produit le miel waa xayawaan sameeya malabka baa laga yiri. Tusaale wuxuu yiri un SM d'abeille waxay ka dhigan tahay koox shinnida badan ee meel ku urursan waxa la radaa un SM. Daqsigo kalena waa sida quraanto kalena waa saa wixii buuqa SM baa la radaa. Marka un SM d'abeille koox badan oo shinniyan il a été piqué par une abeille waxa qaniintay oo mudday shinni. Les abeilles sont dans la ruche shinnidu waxay ku jirtaa meesha ay malabka ku sameynaysay ruushkay ku dhex jirtaa. Apéron waxa weeyaan qui s'écarte de la règle à la raison
yacni ka baxsan xeerka caqliga dhaafsan oo xun wax aan fiicnayn weeyaan. Tusaale wuxuu yidhi une idée aberrante waa fikir xun, une conduite aberrante waa dhaqan iyo maaragtay maxaan ku rahdaye dhaqan qof leeyahay oo xun, dhaqan aan fiicnayn oo dadka lagu dhex socon karin weeyaan. C'est aberrant d'agir comme ça, inaa sidan loo dhaqmo wax fiican maaha ayay ka dhigan tahay. Appétir waxa weeyaan rendre bête stupide, waa yacni qofka ka dhigaya bilaa macni oo kale amba xayawaan oo kale ka dhigaya weeyaan. C'est lecture la bêtise, akhrinta noocana ee uu akhrinayo ayaa ninkan ka dhigay dhaadhaana. Tusaale kale wuxuu yidhi il s'appétit dans ce midi, ninkan meeshan uu ku dhex dhaadhaamay uu ku cumuubay ayay ka dhigantaa. Abîmer waa casser, détériorer, salir. Abîmer waa burburis amba kharaabis amba xumaynis. Abîmer un livrekii ayuu iska googooyay oo iska dilay. Un immeuble, abîmer un immeuble, aqal guriga oo dhisan ayaa maaragtay waa la dilay oo ranjigii wax laga jajabiyey wax lagu sameeyba uu qarmay aqalkiisi oo maaragtay waa la bahdilay. Abîmer un vêtement, dharkii uu iska jarqiyey uu iska googooyay bay ka dhigan tahay. Abnégation waa sacrifice volontaire de soi-même, waa maxaa Soomaali la dhahdaa waa hagarbaxa qofka loo hagarbaxayo ayaa la dhahdaa. Tusaale wuxuu yidhi un acte d'abnégation waa ficil hagarbax ku jiro, yacni qofku markuu wax qabto ama qof ha u qabto amba wax ha sameeyo waxa uu sameeyeyna wuxuu ku daray hagarbax, nacam si fiican ayuu u sameeyey. Marka un acte d'abnégation waa ficil hagarbaxa weeyaan. kelmadan kale 13aad abolir waxa weeyaan annuler, supprimer waa baabi'is, joojis. L'esclavage a été aboli en 1883, addoonnimada waxaa la joojiyey oo meesha laga saaray 1888 ayaa la joojiyey. Abolir une loi, yacni xeer jiray ayaa la joojiyey oo la masaxay. Abolition waa kelmadeedii oo waxay ka dhigan tahay suppression waa joojis weeyaan, mamnuucis. Abolition de l'esclavage waxaa la joojiyey oo la mamnuucay addoonnimadii waa la joojiyey. Aboiement waa cri du chien, waa cida eyga waxaa la dhahdaa aboiement. L'aboiement du chien waxay ka dhigan tahay waa cida eyga. Ablation waa action d'enlever par la chirurgie. Ablation waxay ka dhigan tahay waa ka goynis ka saaris waxa qofka laga gooyo sida maaragtay jirkiisa meel laga gooyo wax aan ka dubkiisa naf wax saayo ablation. Tusaale wuxuu yidhi ablation du bon de suture, qofkan waxaa laga goynayaa dhibicihii iyo qodbihii tolmaha ayaa laga goynaya. Qofka marka dhakhtarka la geeyo la tolo kadib wuxuu u noqdaa in laga guro qodbihii. Marka ablation waxaa laga guraya laga saaraya du bon de suture dhulkii laga tolay. Tusaale kale wuxuu yidhi pratiquer l'ablation d'un rein, waxaa lagu sameeyey oo laga saaray keli. Ablation d'un rein waa keli ka saarista weyn. Abonder, être en grande quantité, yacni ka buuxay bay ka dhigan tahay ka badan. Les fautes abondent dans ce texte, textkan amba waxaan meesha ku qoran khaladad badan baa ka buuxa. Ces livres abondent en citation, liverkan ama buuggan waxaa ka buuxa mahmahyo iyo xigmado badan baa ka jira ayaa ka buuxa. Abonder markaa ka buuxa weyn. Aborigine waxay ka dhigan tahay personne originaire du pays, qofka waddanka u dhashay ee waddankaas kale dadka waddan kale ayaa la dhahdaa aborigine. Tusaale wuxuu yidhi population aborigine, dadkii waddanka u dhashay ee iska lahaa weeyaan. Tusaale kale wuxuu yidhi plante animal aborigine waa caleen ama geedo waddanka u dhashay. Waxaa jira geedo waddan un ka baxa oo meel kale laga helin baa jira. Xayawaan saas oo kale ayaa jira. Matalan Djibouti waxaa jirta shimbirta la dhahdo francolin de Djibouti, waa shimbir keliya Djibouti un bay ku nooshahay, adduunyada meel kale oo laga soo helay ma jirto. Marka shimbirtaas waxa weeyaan un animal aborigine, waa shimbirtii waddanka iska lahayd waddanka u dhalatay weeyaan. Caleemo saa ayaa jira, geedo saa ayaa jira. Geedo waxaa jira keliya meel un ka baxa oo adduunyada meel kale ka bixin, waxaa la dhahdaa geedahaas